gacantada intii haleesha inti xumaha ku fogan maxaanuba jaray xidhiidhka agtada anigu u xiisay intan waa qiso jacayl oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo macaashaqada oo ku nool magaalada Marka. Muna waxay u bilowday qormadeeda ama qoraalkeeda sida tan: waxaan ku noolahay magaalada Marka, magaceegu waa Muna, waxaan isbaranay wiil yiraahdo Maxamed oo ku nool magaalada Marka. waxaan ku bilowday xiriirkeena xiriir wanaagsan. ugu dambeyntiisa waxaan noqonay lamaanayaasha dunida ugu macsuuman caashaqa ama jacaylka. xiriirkeenu wuxuu socdaba, wuxuu dhacaba, wuxuu gabi ka boodaba. waxaan noqday mucaashaqa Soomaaliyeed. waxaanse aad iyo aad ii soo jiitay erayada macaan oo mar waliba ii soo diro iyo qoraalada Maxamed. anigu sadabaa mooday dhalanteedkii caashaqa. dhabbaan moodo jacayl baa dhaxgalay. dhabbaan moodo nafteedii baan dhaawacay. Muna ayaa tiri erayada Maxamed siduu ii maasheynayay badweynta mawjadaha jacayl. sidii uu xiriirkeenu u noqday xiriir qurux badan, siday isku keen xantaan dadka ama dadyooga nala degan magaalada Marka. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah taleefanka Maxamed in laga qaban waayo. sidaan u wacay jawaab male, celis male, fariin in aan diro mooye celis male, jawaab in ay fariin aan diro mooye celis ma lahan jawaab. bay ku celcelisay Muna oo la micno ah fariimaha aan diro jawaab ma lahan. Muna waxay tiri fariimahayga jawaab ma lahan, wicitaankayga jawaab ma lahan, laakiinse kama caajisi jirin, kamana aan quusan jirin, waayo waxaan ahay qof uu jacaylku maasheeyay salligtay. waan ku celcelin jiray mar waliba, kamaan daali jirin. ugu dambeyntii wuxuu ii soo diray Maxamed fariin aad iyo aad iga naxisa, laakiinse aniga aad iyo aad baan u farxay markaan ka fariintiisa. markaan arkay fariintiisa waxaan mooday in aan helay jannadii ifka, laakiin ma ahayn fariin farxadeed. markii aan furay waxbaa iga qabsaday halkaa. gooyay gardarra lay geystay, gooyay godoba layga soo galay, godoona layga dhigay, godaa layga soo rayay. hey gardarra lay geystay, gooyay godoba layga soo galay, godoona layga dhigay, godaa layga soo ridayay. gooyay gardarra lay geystay, gooyay godoba layga soo galay, godoona layga dhigay, godaa layga soo ridayay. Maxamed oo ku soo qoray eray sida tan: walaal iga raali noqo Muna, aniga kuma jecli waxa aan kula hadlayay iyo erayadii aan ku weersanayna ma aha wax dhab ah. waxay iga ahaayeen dhalanteed, jacayl dhab ahna kuma qabo. iga raali noqo, iskana kaysaamax haddii aan qalbigaaga ku ciyaaray. waxaan kaa codsanayaa inaad iga tirtirto qaybta xusuusahaada qalbiga. ugu dambeyntii waxaan kaa codsanayaa mar dambe inaadan isoo xasuusan iyo aan soo wicin. Muna markii aan aqriyay bashqada aad ayaan u dhacay. istaaga ayaan ka dhacay sare jooga, waana qaboobay. dhidid ayaa iga yimi, miirkana halkaa ayaa igu dambeysay. dabeetana waxaan soo naaxay anoo jiifa isbitaal ku yaala magaaladeena Marka oo familigayga hareerahayga fadhiyaan. waxaan ku yiri maxaa i helay? waxayna igu dhaheen familiga waad suuxday, adigoo suuxsan baan kaa soo qaadnay halka aad ku dhacday oo ahayd qolkaaga. adigoo suuxsan baan ku soo qaadnay. hadda Muna miyaad fiican tahay? waxaan ku dhahay waan fiicanahay, laakiinse ma aanan fiicnayn. Beetir Muna oo hadalkeeda sii wadata oo waxaan dareemayay xanuun iyo tiiraanyo iga haysatay dhanka qalbiga, laakiinse dadka waxaan u muujinayay in aan fiicanahay. qolkayga ayaan hoosta ka xiran jiray, waan iska ooyi jiray. waxaan akhri jiray waraaqadii hore oo ii soo diri jiray iyo waraaqada dambe ayaan isku fiirfiiriyaa. iyadoo asigoo sidaas ii dhaawacay marnaba niyadda haddana ima dhexayso iska daawo, kasii guuso, kasii niyad jab. waayo wuxuu ahaa qof si degan ama si daacadnimo ay ku dheehan tahay igu muujiyay jacayl iguna qiyaamay.
iguna qiyaamay qalbi daacadnimo ayuu ii muujiyay waayo qalbigayga markuu arkay inuu daacad yahay tijaabiyay waxaanu qabo ayuu daacadnimadeedii igu qiyaanay maalin waliba waxaan wixii jiray sawiradiisa hadaladii hore fariimihiisa laakiinse waxaa nabarkayga in ay sii damqiyaan ay boogta igu taal cusbo sii mariyaan mooyee kama heli jirin nafis laakiinse waxaan u moodi jiray inaan ku nafisayo qol muuqdiyo baan isku soo xiri jiray oo murugada jacayl baan daris laahaa cunno maan cuni jirin cabitaana daa hadalkii cunnahayga waxay sii mara waa candhuufta oo keliya calaacal iyo cataw ayaa iga bixi jiray waxaana dhegaysan jiray heesaha calaacalka waxaana ugu dambeyntii isku dhiirigeliyay inaan iska iloobo noloshaas oon ka soo dhigo waxaanba jirin ama aanba isoo marin laakiinse mar waliba waxaan xasuusan jiray hadaladii macaanaa ee wanaagsanaa uu dhihi jiray oo daacadnimadeyda uu igaga faa'iideysto asina igu qiyaanay oo ii muujiyay inuu daacad yahay laakiinse aniga mar waliba waan murugoon jiray waana hooyin jiray noloshayda inta aan banaanka fadhiyo reerka farxad baa u muujin jiray ehladayda iyo asxaabtayda laakiin markii aan firaashkayga imaado waan ooyin jiray si aan u nafiso ugu dambeyntii Muna oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay ku soo kobtay qormadeeda nafsigu waa cajiib kol haduu ku cuuriyaansho cawaaqib xumaa lagala kulmaa nafsigu waa cajiib ereyadaas ayay ku soo celisay Muna oo sii cataawaysa waana mucaashaqad Soomaaliyeed oo la daaladhacaysa jacayl Muna ayaa tiri iminka waxaan rajaynayaa inaan ka bogsan doono nabarada jacayl ee helay insha Allah laakiinse waxaan ka digayaa dadka qalbiyada dhaawacaya bini'aadamka in aysan ku sii naalooni doonin farxadda ay maanta dareemayaan iyo murugta ay dareensiinayaan macaashiqiinta sida dhabta u jecel ee qalbiyadooda inta hantaan ku ciyaarayaan ku dheelayaan laakiin maalin ayay ayagana ogaan doonaan xanuunka ay jacaylka dhabta wuxuu yahay Muna aad ayay u ooysay run ahaantii waxaan Ilaahay ugu baryayaa inuu ka dulqaado fariinta waxa idin soo tabinaysa qormada Muna ee soo qortay anigoo ah walaashiina Samiira Sirjana qalbigii ku xidhay xiskayga midkan ku soray midkan cishayeen jecladay xumaan baytu ka dhowro miyuu xalu heli jacaylka xiskiisa intuu siyaarta miyuu caashaqa xaggiisa cusiyo u samayninta lo